mawjadaha gaagaaban efemyada iyo boggeena internetka ee bbcsomali.com. kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad naga maqlaysaan waa subaxnimo isniin ah 26 Juun ee sanadka 2023 waxaan ahay Kawthar Maxamed Cabdulaahi. barnaamijka subaxnimo qodobadan idinkugu haynana waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya oo sheegay inaanay kala maarmin Soomaaliya iyo Somaliland. kalamaan raysan waqooyina nagama raysan annagana kama raysan. waqooyi waa meel nabdoon way fiican tahay, horena waa u bogaadinay waana bogaadinaynaa. waxa ay qabsadeen ee wanaagga ana waa qiraynaa. madaxweynaha Somaliland oo isna khudbad ka jeediyay 26 Juun ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda dagaalka Laascaanood. waxaan sidoo kale idin haynaa wararkii ugu dambeeyay ee dagaalka Laascaanood iyo magaalada oo xalay markii ugu horeysay 16 sano kadib laga xusay 26 Juun iyadoo la lulayo calanka Soomaaliya. waxaa kaloo aad maqli doontaan madasha ay ku midaysan yihiin qaar ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka Puntland oo ciidanka badda ee maamulkaasi ugu baaqay inay ka gaabsadaan khilaafka halka ka taagan. qodobadaas iyo kuwa kale oo faahfaahsan ciyaarihiin ay ku jiraan ayaad ku maqli doontaan barnaamijkan subaxnimo oo uu soo saaray Cabdiraxmaan Cali Dhimbiil. marka hore si ay ku soo dhawaada wararka caalamka ee BBC-da waxaana u diyaar ah Xasan Sheekh Umar. mahadsanid Kawthar. ciidamo ayaa isku gadaamay xarunta xisbiga mucaaradka ugu weyn ee dalka Sierra Leone iyadoo ay socoto tirinta codadka doorashada madaxtinimada ee dalkaas. hogaamiyaha mucaaradka ee dalkaasi ayaa sheegay in rasaas lagu furay xilli uu qabanayay shir jaraa'id, waxaana uu falkaasi ku tilmaamay isku day dil. madaxa xisbiga New Democracy ee Greega ayaa sheegay inuu hogaamiyo xisbiga midigta dhexe ee ugu awoodda badan Yurub kadib markii si lama filaan ah ugu guulaystay doorashadii guud ee Axaddii. Kyriakos Mitsotakis waxa uu sheegay inuu hadda haysto awoodda uu ku doonayo in dib u habayn uu uga sameeyo dalkiisa. madaxweynaha Ukraine Zelensky ayaa sheegay in Joe Biden uu kala hadlay arrimo ku saabsan ciidamada caloosha u shaqaystayaasha ee Wagner ee Ruushka. wadahadalkooda oo qadka telefoonka ahaa ayuu ku tilmaamay mid si wanaagsan u dhacay. xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka ayaa isna sheegay in fallaagadu ay bannaanka soo dhigtay daldaloolada hoggaanka madaxweyne Putin. ilaalada xeebaha Mareykanka ayaa sheegay in baaritaankooda dhimashada 5 qof ee maalqabeennada ahaa ee ku dhintay doontii yareed ee Titan ay ujeeddadiisu tahay sidii loo wanaajin lahaa badqabka badda ee adduunka oo dhan. sargaalka hogaaminaya baaritaankan ayaa sidaa warbaahinta u sheegay. dowladda Israa'iil ayaa sheegtay in la fashiliyay qorshe ay Iiraan ku doonaysay in ay ku weerarto Israa'iiliyiin ku sugan Qubrus. Iiraan iyo Qubrus midkoodna kama hadlin arrintan. 2 sano ka hor Israa'iil waxay Iiraan ku eedeysay in ay isku dayday in ay geysato weerarkan la mid ah. ugu dambeyntiina goobaha codbixinta ayaa la soo xiray doorashada madaxtinimada ee dalka Guatemala, waxaana jira eedeymo isdaba joog ahaa intii ay lagu jiray codbixintii Axaddii shalay. haddii musharax aanu ku guulaysan 50% codadka la dhiibtay, labada musharax ee ugu cadcad ayaa waxay ku tartami doonaan wareegga labaad bisha Agoosto ee nagu soo aadan. warkii subaxnimo waa naga intaa Kawthar. xasan aad ayuu mahadsan yahay dhegeystayaal. markana u diyaar garooba qaybaha kale ee idaacadeena. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. aan ku bilaabnay madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Somaliland ayaa xalay Muqdisho iyo Hargeysa uga qayb galay xafladda xuska 26 Juun oo lagu xuseeyay sanad guuradii 63aad ee ka soo wareegtay markii gobolladii waqooyi haddana ah Somaliland ay xorriyadoodii kala wareegeen gumaystihii Ingiriiska. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay inaanay kala maarmin waqooyiga iyo koonfurta, isagoo dhanka kalena bogaadiyay amniga Somaliland, sidoo kalena sheegay in guud ahaan Soomaalidu ay weli u heelan tahay farsamooyinkii burburiyay dowladdii Soomaaliya. kalamaan raysan waqooyina nagama raysan annagana kama raysan. waqooyi waa meel nabdoon way fiican tahay, horena waa u bogaadinay waana bogaadinaynaa. waxa ay qabsadeen ee wanaagga ana waa qiraynaa muxuu ahay oo ma dafirayno. laakiin wixii Soomaaliyo isla jirto oo mid ah ay gaari lahaayeen ama ay heli lahaayeen waa ka maqan yihiin.
wixii ayagu ay qabsan kareen oo dadaala hambalyaan leenahay allah u waariyaan leenahay way qabsadeen meesha ay joogaan waxa ka dhiman waa wixii Soomaaliya oo wada jirta magaceeda iyo maqaamkeeda iyo kartideeda iyo wax isku darsigeeda xagga aqli iyo xagga maadi iyo xagga mati intaba lagu gaari lahaa ka dhiman ayadana ilaahay idis wada kasta oo lagu heli karo inaan marro ayaa diyaar aan u nahay waligeen kumaanaan fikirin inaan ku fikirno sida dad badan oo Soomaali u fikiraan hadda ciifeen waa idin ogolaanayaane kumaanaan fikirin waligeen ha xoogeysteen way idin garab istaagaan waana idin garab qabanayaan ku fikiri jirin waxay ay qabsadeen waa ku amaanayeen ha ilaashadeen yaan leenahay bas waxaan mar walba ku leenahay walaalayaal waad wanaagsantiin meel sanna waad joogtaane ilaashada annaga oo dawlad wada ah oo ciidanka ugu tayo badan Afrika qabna oo maxaan ku raadayay magaceena iyo meel walba aan joogno oo nala ixtiraamo oo taagan ayaan cisho weynay ayaan burbur asbaabtii iyo tuulkii aan ku furfurnay dawladdii ee aan ku kala daadinay tuul aan ahayn ama qalab aan ahayn aan u baahannahay maanta inaan isku xirxirno dadka qaarkiis ee walaalaha kii aan shalay dawladnimadeennii ku kala furfurnay ayay wili sitaan oo wili gacanta ugu jira markaasay rabaan wixii dawladnimadan ku sameeynaynaan inay dhahaan midkaasi mid wax lagu furfuro ahaa mid wax lagu kaba ma ahayn waxaan noqonnay dad hal tuul haysto tuulkaas waa maxay tuulka dawladnimada lagu furfuro kan dadka lagu kala geeyo kan dad cuqdadaha iyo xumaanta iyo maxaan ku raadayay ay ku haysato waay waxaan u baahannahay dad tool boxkooda uu buuxo oo mushkilad kasta oo timaadahay toolka ku saxda ah inta furto tool box kala soo bixi kara ee ku xalli kara ku hagaajin kara madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayuu kaasi ahaa dhanka kale madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa isna ka hadlay xaflad lagu qabtay magaalada Hargeysa waxaana uu kaga hadlay arrimo badan oo ay ka mid tahay dagaalka Laascaanood isagoo sheegay in loo baahan yahay in wada hadal lagu dhameeyo arrinta isla markaana aysan marnaba aqbalayn in hab qabiil lagu burburiyo xadkooda salaadiin culimo golayaal dadweyne qof Soomaaliland oo aan nabad u baaqayn ma jiro reer Laascaanood haddana waa ugu celinayna waxaan rumaysanahay dadka reer Laascaanood wariye magaalada Laascaanood dadkii deganaa maanta iyagaa nabad inoogu jecel oo nabad u baahan dadka shacabka ah reer Laascaanood sababtoo ah maanta dhibaato dibadda laga soo waariyo dadka shacabka ku dhacday qax aan loo baahnayn baa la geliyay dil aan loo baahnayn baa dhacay daawac baa dhacay wali la isma weydiin muxuu noogu dhacay aad u baa la saaray dowladda Soomaaliyeed baa dishay Soomaaliyeed baa leeyahay Somaliland horena umay dirin haddana kumay duurin waxa dagaal dhacay maalin qura Somaliland weerar ma qaadin xabadda kumay horeyn tul ugu soo reeday dafacda mooyaane shalay iyo maanta u dambeeyay shalay aroortii 8 aroornimo markay ahayd iyo dheeraad ayay ciidanka Somaliland ku soo rideen madaafiic hubiyaal markaasay labadii horeeyay direen xaq buu leeyahay ciidanka marka la soo weeraro inuu isna jawaab culus bixiyo ma jiro qof qaadanaya aan ku dilay haylaan haddana halkan waxaan ka leenahay saakana la mid baahay waxaan anigu leeyahay oo ciidanku amar ku qaba oo Somaliland uu ku raacsan tahay inaanu ciidankeenu weerar ku qaadin nimanka halka jooga oo aan ahayn reer Laascaanood ee ah ciidankii Puntland waliba kuwa ay taabareen dawladaha sheeyay ee magaca gaarka alla baxay ee boosaas deganaa xoogoodii waddanka labeeyay ay ka mid ahaayeen waa ka dalka soo duulay weey waxa kale oo jooga oo nin shaqo qarsanayeen ururyo kamid ah ama iminka ururaba gaaray oo isu diyaarinayeen meesha la wareegaan ay shabaab yargixisada oo ninna ka qarsoonay hadday reer Laascaanood talada hayaan hadday dadka reer Laascaanood hayeen nabad iyo wada hadal waa la gaarina laakiin waa afduubay mar walba iminka oo ku ceelaan nabad baan ku baaqaynaa wada hadal baan ku baaqaynaa xabad joojin baan ku qaadaynaa wax taan ama garamayno laakiin ciidanka Soomaaliland waajib baa saaran inuu xuduudihiisa gaaro oo daafaco waa dastuuri qaramada loo qabnaa laguma bedeli karo xadka Soomaaliland hab qabariya reer ma bedeli karo xadka Soomaaliland haddii Soomaaliland xadkeeda qabal lagu bedelo
afrika oo dhan baa lagu bedeli doonaa iyadaa isku wareeraya madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayuu kaasi ahaa. isla wararka xuska ayaan ku guda jirnaaye waxaa maanta degan xaaladda magaalada laascaanood oo dagaal xoogan uu ka dhacay labadii maalmood ee lasoo dhaafay. isla magaaladaas xalay waxaa markii ugu horreysay 16 sano kadib si rasmi ah looga xusay 26 juun iyada oo la lulayo calanka Soomaaliya. ugu yaraan 7 qof ayaa ku dhimatay halka 11 kalena ay ku dhaawacmeen dagaalkii dhacay labadii maalmood ee u dambeeyay. sida uu goorsii horeysay ii sheegay Faysal Jaamac Aadan oo ah wariye jooga magaaladaasi oo qadka telefoonka igu waramay. kawsare magaaladu saaka waa ay degan tahay wax dhibaato ah oo jiraan ma jiraan ilaa iyo shalay gelinkii dambe ma aysan dhicin wax dhibaato ah ama wax dagaal ah oo u dhaxeeya labada ciidan ee maalmihii u dambeeyey dirirtu ku dhex maraysay magaalada laascaanood iyo deegaanadan ku xeeran iyadoo waxay habeenkii xalay ahayd ay dadka intooda badani ay joogeen dowladda hoose oo ay ku xusayeen 26 juun. marka dagaaladii dhacay maalmihii ugu dambeeyay maxaa khasaare ah oo ka dhashay? kawsaray shalay iyo doraad bay ahaayeen dagaalada ugu badan ee dhacay. weliba maalinimadii doraad ayay ahayd markii madaafiic aad u tiro badan ay magaalada ku soo hoobteen oo aad la odhan karo xitaa boqolaal waa gaadhayeen. xaqiiqatan dadka markii aan tegey isbitaalkan manhal oo ah halka xarunta imika lagu kaydiyo dhacdooyinka dhaca iyo isbitaalka gargaar iyo isbitaalka guud ee magaalada laascaanood waxa yaalay dhowr iyo 10 dhaawac ah iyo 7 dhimasho ah iyadoo ay ku jireen dadka dhaawaca dad dumar ah. waa dadkii dhammaantood magaalada dhexdeeda ay madaafiicdu ku waxyeeleeyeen. sidoo kale madaafiicdu waxa ay ku dhaceen masaajid iyo dugsi lagu baran jiray farsamada gacanta iyo guryo aad u tiro badan oo intooda badan ay qaarkood dabqabsaday oo dab ka kacay. ma jirto wax kale oo tilmaami karo oo la odhan karo maanta aan ka ahayn dee xal lagu joojinayo dhibaatadan taagan oo mar kasta soo noqnoqota iyadoo maalinta ka dambaysa aad dadku sii tilcayaan. dad badan oo suuqyada ku soo noqday maalmihii u dambeysay oo meherado iyo ka furfurtay oo joogi kari waayo goobaha ay u qaxeen ayaa kawsaray haddana isla shalay iyo maantaba dib u qaxayay oo ku noqonayay meelihii ay ka yimaadeen iyo miyiyada kadib markii u adkaysan kari waayeen madaafiicdii dhacaysay xooggooda. kaasi waxa uu ahaa Faysal Jaamac Aadan oo ah wariye degan laascaanood oo iga waramayay xaaladihii ugu dambeeyay ee magaaladaas kadib dagaalo ka dhacay maalmihii ama labadii maalmood ee la soo dhaafay. halka warbixinadaas aad weli ka dhageysanaysaana waa laanta af Soomaaliga ee BBC. BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba. waa tahay dhegeystayaal haddii wararka xuskana aan halka uga baxno markana dowlad deegaanka aan eegne qaar ka mid ah shacabka ku nool gobolada qaar ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa ka cabanaya qaabka dawladdu u maareyso xalinta isku dhaca beelaha iyo arrimo kale. dadka magaalada Wardheer ayaa ka cabanaya in laga barakiciyay deegaanada qaar. Xasan Daahir oo ka mid ah waxgaradka gobolka Doolow ayaa sidan leh. waxaa dhacay waxa uu hadda dunidan kolley gobolkan ku cusub oo weligeed lehda aan ka soo dhicin baa ka dhacay. marka magaalaha deeweyn oo qadiimi oo danadeeda iyo hantideeda iyo barkadaheedu ay 40 jirsadeen oo yaa inta la qaaday xididada loo soo fakiyay oo magaaladeena la soo baabiyay la soo dumiyay. magaalada Dar es Salaam baa la yiraahdaa 60 kilomitir bay furta wareer ka tahay. marka magaaladaas waa baabaaday dadkaas waa la barakiciyay oo Wardheer iyo Ubataare iyo Wardhuuqbuudaas waa la soo daadiyay. dawladda iyo matqaanaa dad ganacsatada baa waxay ka shaqeeyaan baa waxaas ku dhaceen. masiibadaas meesha ka dhacday dad la qaxiyay oo laga saaray baradoodii oo la qaxiyay hantidoodina la baabiyay way. Xasan Daahir oo kamid ah waxgaradka Doolow ayuu kaasi ahaa. dhanka kale waxaa jira warar sheegaya in ilaa 4 qof oo shacab lagu dilay agagaarka tuulada Laab ee degmada Beercaano kadib muran ka dhashay goob ay degeen xilli ay ka soo fogaadeen fatahaada webiga Shabeelle. sidaasina waxaa BBC-da u sheegay Axmed Sheekh Xuseen Axmed. korneyl baa noo yeeray 14 oday wuu kaaleen wada hadal leh odayaashii markuu geedka wala baxay
horay uu qabaalkii kaga sii guray wuu sii xiray waagii dambe oon baryin oo salaada ayna dilaacina weerar buu nagu qaaday xabad iyo budh ah 4 baa dhimatay 13 waa dhaawac 116 ruuxna waa maxaabiis loo kaxaysto xiray waa meel baa lagu kaxaysto waa xiray waxa weeyaan anaga waxa sidaa noo galaya waa gobolka yaa dhibkan iskale kii aanu u baqan lahayn u xisheegan lahayn isaga weeye waa tahay isla gobolka Shabeelle ee dowladdeegaanka Soomaalida waxay dadku ka cabanayaan in la wareegay beero ay tabacadeen qoysas ku dhaqan degmada Eleele ee gobolkaas iyadoo talaabada uu maamulka gobolka u sababeeyay ka hortagga isku dhac beeleed sida uu BBC-da la wadaagay Abwaan Maxamed Xasan deegaankan ka hadlayo waa guday haddaan joogo meesha cabashadu ay ka jirto dhibku ka jiro waxa xigaa waale oo ka tirsan degmada Eleele dhulbeereed iskaashato muddo halkaas laga beeranayay oo dhulka horena dhulbeereedyadii qadiimiga ahaa ee ganacsiga waqtigu isbedelay oo casrigan la helay la iskaashateeyay oo matooro iyo la qotay dalagii uu wax bislaaday iyo wax ku daga jiray yahay baa ciidamada la dhex fadhiisiyay halkaas marka caqabad ka taagan tahay dadkii dalaga beertay waa ka oodan yahay ciidamada hor taagan waa dhimanaya marka dalagii dadkiina waa u baahan yihiin oo waa tabcadeen meeshaas oo wax taaka dhibkeeda la soo koobi karin dadkii lagu waxyeeleeyay wixii ay ku xisaabtamayeen abaarihii la soo maray aad kaga baxdaan ay lahaayeen ay ka xayiran tahay way dhibaatada kaasi waxa uu ahaa Abwaan Maxamed Xasan dhageystayaal waxaan isku daynay inaanu arrimahaas oo dhan jawaab uga helno hoggaanka amniga dowladdeegaanka iyo gudoomiyaasha goboladaas ay ku sugan yihiin dadkaasi cabanaya balse inuu ma suurtagelin haddii wax jawaab ah aan ka helnana idaacadaheena dambe ayaan idinkugu soo gudbin doonaa markana madasha siyaasadda Puntland oo ah madal ay ku midaysan yihiin qaar ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka ah si gaar ah intooda u sharaxan madaxtinimada Puntland ayaa xalay soo saaray war-saxaafadeed ay ugu baaqayaan ciidanka badda Puntland inay ka gaabsadaan khilaafka siyaasadeed ee ka taagan maamulkaasi Puntland muddooyinkii u dambeeyay waxaa ka taagnaa khilaaf siyaasadeed oo gaaray gacanka hadal oo ay ku dhinteen tiro dad ah halka kuwo kalena ay ku dhaawacmeen haddaba xogta war-saxaafadeedka ka soo baxay madasha siyaasadda Puntland ayaanu ka wareysanay Faarax Cali Shire oo ah hafayeenka madashaas waxaana uu u waramay wariyaha BBC-da Cabdiraxmaan Cali Dhimbil war-saxaafadeedkan soo saaray haddaan soo koobo wuxuu ka hadlayaa ciidamada booliis marigiska Puntland ay imaaraadku maaragtay gacanta ku hayaan oo aasaaskeedii iyo maalgelinteedii lahaayeen oo loogu talagalay inay la dagaalamaan barcadbareedda iyo argagixisada ayuu ku saabsanaa oo hadda arrimo siyaasadeed dowladdu u isticmaashay xukuumadda madaxweyne Siciid Cabdullaahi Deni arrimaha siyaasadda iyo caburinta iyo oo ay ka qayb qaateen dagaalkii Boosaasood oo sanadkii 2021 haddana ay ku jireen dagaalkii ka dhacay maaragtay Garowe taasaan waxaanu ka muujinay maaragtay walaac weyn iyo waxa ay ciidamadaasu daaran yihiin ma garat marka waxa la isweydiin karaa maxaad iyaga si gaar ah farta ugu fiiqdeen ee ay kaga duwan yihiin ciidamada kala duwan ee Puntland ka jira ciidamada booliiska iyo daraawiishtu waxa weeyaan waa ciidamo localka amnigiisa inay sugaan loogu talagalay magaalooyinka haddii wax ka dhacaaniin laakiin ciidamadan waxaa loogu talagalay dad gaar ah inay la dagaalamaan oo dad gaar ah oo la yaqaano oo si macrifo ah oo heshiis ah bay ku joogaan waddanka kuma joogaan inay local conflictiga iyo local maaragtay rabshadaha ka dhaca magaalooyinka dhexdooda inay iyagu hawl ka qaataan heshiiskii lagu aasaasay kuma jiro aniguna waxaan ka mid ahaa dadkii aasaasayaalka ahaa oo ugu horreeyey markii la aasaasay ma aha coast guard ma aha navina ma aha booliisda ma aha daraawiish ma aha waa booliiska badda Puntland waagii la aasaasaya waxaa loogu talagalay inay barcadbareedii aad garanaysaan oo waddankan dhibaatada ku haysay la dagaalamaan iyo argagixisada laakiin Puntland waxaan ognahay in ciidamo kala duwan oo kuwa sheegtay gudaha qaar ka mid ah ay gadoodsan yihiin isla mar ahaantaana ay ku jiraan doorar ahayn doorkii loogu talagalay inay ka shaqeeyaan marka maxaad iyaga kaliya gaar ula baxdeen maad kuwaana u sheegtaan iyaguna doorkoodii ku ekaadaan kuwaas waxaan ugu fiiqaynaa waxa weeyaan cid shisheeyaa gacanta ku haysa kuwaan kaloo gadoosan dowladday ka gadoodeen dowladday tahay inay iyadu xaasho soo xerageliso iyaday tahay waxay tabanayaan inay kala hadasho laakiin kuwaas hay'ad kala gacanta ku haysa soo laba dhinac lama kala noqon oo dhinaca dowladdu soo ciidamadeedii kala duwanaa soo inay adeegsato xaq uma leh haddii ciidan kala goosto iyana ay hawl kala diyaar u yihiin maya uma laha waxay tegaysaa arrintaasu waddamadii saaxiibada aan la ahayn
oo waddankan caawinayay in dadku nacaan lala dagaalamo la maago wax laga qoranay imaanaysaa marka taas dowladdu xaq idinku ka mucaarad ahaan sida muuqata ciidankii waa kala saarteen qayb baad tirahdeen dagaalka gelina hadalkiina sumiyuu ka dhigan yahay qaybta kale inay dagaalanto hawshooda taa way fasaxan tahay maya kama dhigna waxay ka dhigan tahay dowladdu inay kuwa kaleeto la macaamisho kuwaas cid kalaa gacanta ku haysa dowladdu keliya waxay amri kartaa markay dagaal shabaaba iyo burcadbadeed gelayaanin laakiin inay dadka shicibka u adeegsato waa arrin khaldan wey kuwa kaloo dagaalamayaana way khaldan yihiin laakiin waxaanu ka eegaynaa kuwan dowladda gacanta ku haysay iyadaa mushaar siisa iyadaa qortay iyadaa ay ku jiraan dastuurkeeda kuwan laakiin iyadu ma qorin mushaar ma siiso raashin ma siiso ma siiso uma gado marka taasaan ku kala qaadayna marka haddii aydan ciidamadii kalena iyagana ugu baaqayn inay xaaladda joojiyaan oo aydan warqadiinana ku sheegin kuwana sababta keliyaad u saarteen ay tahay inaad leedihiin dowlad kale ayaa biisha hadalkiinuma waxaa u dhacayaa war ciidamada gudaha aynu isu adeegsanay kuwa dowladaha kale biilaan aynu iska dayno maya waxaad fiirisaa bari filinsigan ka horreeyey waxaanu nidhi kii kasii horreeyey fiiri kulligood baanu ugu baaqaynay kuwaana markaa kuma jirin xataa iyagu ma soo gelin dagaalka laakiin waxaan ugu baaqaynay ciidamada puntland jooga noocay rabaan ha noqdeen inayan marna ku milmin siyaasadda laysku hayo oo laysku khilaafsan yahay aragtiyo siyaasadoo kala duwan inayan ku milmin dowladduna ayan u adeegsan si khaldan oo ka duwan sidii ay ahayd in loo adeegsado marka waxaad sheegteen khilaafku inuu khilaaf siyaasi yahay ciidamada kale ee laftoodu sidaa sheegteen khilaafka siyaasiga ku milansan yare maxaad leedihiin waxaan leenahay iyagana joojiya waxa aad wadaanin oo dagaalka oo gacanka hadalka ah marka ciidankaasi khilaaf siyaasiya inay ku milan yihiin baad idinku aaminsantihi soo maa ayna khalad tahay inay ku milmaan waxaan qabnaa inay yihiin ciidamo ka geeriyooday ama ka kii dowladda dhankeeda ka noqday ku qanci waayey wixii ay ka heli lahayeen iyo say u maamulaysay iyo say ahaayeen kadibna cid kale u gacan haadisay oo u yeeratay baanu u arkaynaa dowladda ay hanan weydey marka waxaan leenahay dowladdu ciidamadeeda ha hanato ha la hadasho waxay tabanayaan ha u samayso ha ka soo celiso cidda gacanta ku dhigtay oo ka duwan iyaga ka baxsan kaasi waxa uu ahaa faarax cali shire afhayeenka madasha siyaasadda puntland oo u waramayay cabdiraxmaan cali dhimbiil halka weli aad naga dhegaysanaysaana waa b b c waa tahay dhegaystayaal wararka xuskaan dib ugu soo laabanee iyadoo lagu guda jiro isbuuca xorriyadda soomaaliya ee maalmaha 26 juun iyo 1 luulyo waxaa jirto koox lafdhabar u ah xuska maalmahaas taasoo ah bando musico kooxdan oo tunta muusigada astaanta qaranka kuwa wadamada ajaaniibta ah ee soomaaliya soo booqdo iyo qaybaha kala duwan ee salaan sharafta mas-uuliyadda dowladda iyo ciidanka ayuu wariyaha b b c da ee magaalada muqdisho maxamuud cabdicasiis ka waraystay taariikhda iyo muhiimadda kooxda gaashaanle dhexe maxamed cali xalaal oo ah taliyaha qaybta salaan sharafta bando muusikada ee booliska soomaaliya banda muusikada booliiska waxay ka mid tahay ciidanka booliiska soomaaliyeed banda muusiko markaan idinka waramo waxay la fac tahay ciidanka booliiska soomaaliyeed waxaa loo kala qaybiyey dhowr qaybood qayb waxay joogeen hargeysa qayb waxay joogeen mataqaanaa beledweyne qayb waxay joogeen kismaayo qaybna waxay joogeen xamar al-ultimo la magacaabay ciidanka booliiska loo magacaabay taliye isla markaasna ee dowladda xornimo ee qaadatay waxaa laiskugu keenay dhammaan kooxihii oo dhanba waa laisku soo aruuriyey waxaa laiskugu keenay xamar ayaa laiskugu keenay gaar ahaan taliska booliiska ayaa lagu wareejiyey hadda maalmaha xorriyadda lagu jiraa banda muusika muhiimad intee la-eg u leedahay ama banda muusika muhiimad intee la-eg ayay ku dhex leedahay dowladnimada soomaaliya run ahaantii banda muusiko hadda haddii tusaale yar aan ku siiyo adoo raaliga ahaanayo haddii qalabkeenna aan qaadanno oo halkaan aan ka baxno laamiga aan ku dhacno kii mooto wadi waa joogsana kii baabuur wadi wax kale xataa iska dhaafi xataa looda iyo dameera xataa way istaagayaan marka taas waxay ku tusinaysaa galgaceelka ay u qabaan shacbiga ay u qabaan yacni ka soo qabo haddii mataqaanaa baasta in la kariyo aan suugo aan lagugu darin dhedhan ma yeelanayso banda muusikaale marka waxaa weeye miraayadii qaranka waay xoogaa haddii aadna fahansiiso kooxda daayir meesha fadhisay qofba qalab uu haystay bal qalabka qaarkiis haddaad nooga waranto iyo waxa uu taro qalabka wuxuu u kala baxaa dhowr nooc u kala baxa wuu badan yahay qayb waxaa la yidhaahdaa yacni ku tusisiyaa codadka dhaadheer
sida codadka haweenka oo kaleento turumbada noocaas oo kaleento waxaa loo yaqaanaa korneeta loo yaqaanaa waana midda calanka lagu dejiya calankana lagu saaro qaybta kaleento ee turumbooyinka garliina la yidhahdaa madmadowga aad aragteen waxaa la yidhahdaa carabdhowga ayay qaabilsan tahay qaybta saksofanada aalta iyo tanoore cod macaaniinta ayay qaabilsan tahay qaybta waaweynka iyo baasada iyo turumboonigana jiibistay qaabilsan yihiin ridmada gurbaanka waa very important waaye muusikadana waxay u tahay teembay u tahay gaashaanle maxamed cali xalaal ayuu kaasi ahaa oo maxamuud cabdicasiis u warramayey markana maanta waa maalintii ugu horreysay ee acmaasha xajku ay bilaabanayso iyadoo muslimiinta xajinayana ay isugu tegayaan mina halkaas oo ay caawa baryi doonaan maalinta beri ahna waxay ku beegan tahay maalinta carafo sheekh cismaan xaaji yuusuf sheekh uusuli ayaa ka warramaya arrimahaas oo dhan maanta waxay ku beegan tahay maalintii yooma tarwiya ayaa la yidhaha waa maalintii ay dadka ka dhaqaaqayeen maka ay aadayaan manay aadayaan waa maalintii bishii 8 ee tahay bisha dilxija waa maalintuu nabiga calayhi salaatu wasalaam maka ka dhaqaaqay uu aaday ilaa mino oo mashaacirta xajka ayaa maanta kale bilaabanaysaa mino intay joogaan 5 salaaday ku tukanayaan salaadaha oo rubaaciga ahna waa soo qasrinayaan caawa meeshay baryayaan bishii 9 ay tahay subaxdii 9 oo maalinta talaadada ayay aadayaan waxaa loo kaxaynayaa banka carafa ayay aadayaan xujayda meeshaas xajka rugnigiisa oo asaaska oo weyn oo nabiga sheegay calayhi salaatu wasalaam alxaju carafa waa maalin ilaahay subxaanahu watacaala aad u barakiyey maalinta ninkii buurta istaagi karo waa istaagaya ninka karantiinadiisa ku jiri karaa kulleyta bankaas dhan carafa maxaa nabiga calayhi salaatu wasalaam buurta ayuu istaagay wuxuu yidhi laakiin aniga halkaana istaagay laakiin carafo dhan waa mowqif ayuu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam marka maalintaas waxaa la doonaya dadka xujayta ah inay ka faa'iidaystaan qaar iska seexdo teelooyinka isku hurda inay hurdaan ma aha waa maalin ilaahay subxaana watacaala uu soo degayo oo malaa'igta ugu dhahaya ee ugu faanayo ummadayda dhahaya maxay usoo dhacay waa maalin uu nabiga sheegay calayhi salaatu wasalaam ma jirto yidhi maalin ka badan ilaahay uu cabdi naafta ka xureeyo oo ah maalinkaas maalinka yooma carafa ah oo ah maalin ilaahay subxaana watacaala walidaalika waxaa laga wariyey axad ibnu cabaas inuu arkay nin maalinta carafa dadka wax weydiinaya dhaha waxaa leesiiya uu meesha ku tuuqsanayo markaasuu yidhi wayxaka maxaad aad maanta oo kale ma ilaahay keyrkiisa wax la weydiiyaa maalin ilaahay subxana watacaala uu ducada aqbala wey wuxuu noo sheegay ducada ugu fiican khayr duca carafa yidhi qofka inuu badiyo maalinkaas oo kale xujayda ah kelimada ah tawxiidka laa ilaha illa waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamd wahuwa calaa kulli shayin qadiir inay maalka ay badiyaan ilaahina ay baryaan ay u duceeyaan ummadda qaasada ummadda soomaalida waxaan leenahay wadanka u duceeya ilmiha carruurta loo duceeyo dadkeenan qurbaha jooga usoo duceeya maalinkaas waa maalin aad u weyn uu nabiga calayhi salaam oo ka sheekeeyey oo meeshaas khudbo ka jeediyey walidaalika maalinkaas carafa waa maalinta ilaahay diinta noo dhamaystira wey alyawma akmaltu lakum diinakum wa atamtu calaykum nicmatii wa raditu lakum alislaama diina maalinkaas waa maalin xujayta la doonaya inay isoo banbaxaan ilaahay subxana watacaala ay tadaruci sameeyaan salafu saacda qaarkood waxaa leeyihin jilbaha dhulka dhiga jireen xataa inuu qofku jilbaha dhulka dhigto oo jilbaha dhulka u yaal u duceysaya sunna ah oo iska taagnaanin waa tahay aad ayuu u mahadsan yahay sheekh usuli ayuu kaasi ahaa ciyaarihiina haddii aan eegno waxa ugu waaweyn colibali oo isaga tegay chelsea si toosna ugu biiray kooxda sacuudiga ka dhisan ee alhilaal man cityna waxay ku dhowdahay inay lacag aad u badan kusoo iibsato daafaca reer croatia ee gafadiol dhegeystayaal intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan idaacaddeenna subaxnimo oo cabdiraxmaan cali dembiil soo saaray anigoo ah kawthar maxamed cabdulaahina idinla socodsiinayay tan iyo kulankeena xiga 5 galabnimo inta ka horeysa sidaas iyo nabadgelyo